عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaan distributorada Forever Living Product walaalayaal waad salaamantihiin. Halkan waxaan iigu soo gudbin doonaa waxa weeyaan waa tababaradeena kuwa ka mid ah tababarkani waxa weeyaan level building-ka siduu qofku uu levelkiisa uu u dhisayo amba uu horumarinayo inuu qofku wax badan ogaadaa waxay u sahashaa inuu meeshu tagayo uu si yar fudud ku tago. Maanta haddaad garanayso meeshaad ku socoto markaad gurigaaga ka baxayso meeshaad kala tegayso haddaad garanayso wadadii ku geynaysay si yar fudud baad u tagi kartaa. Balse haddaanad garanayn meeshii ku geyn lahayd waxay kugu qaadanaysaa muddooyin iyo maalmo. Marka meelo aad maalmo ku tagi lahayd adigoo saacad ku tagaya waxa wanaagsan inaad barato wadada ugu saxsaneed wixii aad ku mari karto. Marka halkan waxaan requirement-iga amba waxa looga baahan yahay ayaan iigu soo gudbin doonaa marka uu qofku sidaa u bilaabo company-gii assistant supervisor uu galo ilaa iyo supervisor. Marka wixii looga baahan yahay qofka waxa lagaga baahan yahay oo garataa waxay kuu sahlaysaa inaad si yar fudud wixii aad doonaysay aad u gaadho una hesho. Marka barbilowga marka company-ga uu qofku bilaabayo wuu isdiiwaan geliyaa. Marka halkaasay ka bilaabmataa horta shaqadu. Marka already maalin marka isdiiwaan geliso iyo maalintii ka horeysay aan isdiiwaan gelin aadan diiwaan gelintii samaynin isku qof ma tihid bay ka dhigantahay. Imkana qof company-ga ku jira tahay marka horena kuma jirin. Marka isdiiwaan geliso laba faa'iido qofku leeyahay taasi oo ah in alaabtii discount laga daayo wax oo 15% loo sameeyo iyo sidoo kale in la siiyo card uu ku shaqeysto qofku ganacsigiisa iyo hawlihiisa uu ku wato. Marka intaa loo sameeyo qofka dadna iibkii ayuu bilaabaa uu bulshada ka iibinayay uu ka sii ganacsanayay iyo kuwa uu isagu isticmaalayaba. Iibka wadarta guudi markay isku gaadho 2cc oo cc-giya labadaas cc-na qof walba uu garanaya inta markaa laga siinayo ay ku taagan tahay lacag ahaan. Waayo cc-gu waa wax lacag ahaan u dhigma. Marka deetana 2cc uu ku iibiyo labada bilood gudaheed waxa loo yaqaan wax la yiraahdo weeyaan assistant supervisor. Qofku haddaba bartay assistant supervisor-ka markuu galo dadku waa laba nooc markaa. Qof odhanaya marka war anigu waxaan doonayaa inaan anigu kaliya iska shaqeysto oo alaabtan ka ganacsado. Iyo qof leh waxaan u baahanahay inaan ganacsigayga anigoo ganacsanaya inaan ganacsigayga sii ballaariyo oo intan in ka ballaaran aan sii sameeyo oo team aan samaysto anigii aan alaabtii iibiyo anigii aan hawshayda wato team kalena aan samaysto. Laakiin qofku xurriyad buu haystaa hadduu leeyahay war anigoo kaliya iska shaqeysanaya waa gaarkeeda. Laakiin marka uu qofku team sameeyo uu doonayo inuu ganacsigiisa sii ballaariyo taasa ah ta horumarka ka sii badanna uu ka helayo. Waayo halkii ganacsiga iyo fursadu isaga kaga koobnaan lahayd ayuu walaalihiisa ganacsigii u baahan uu la wadaagay uu ku yiri war waxaan waad u baahan tihiin ka faa'iideysta. Haddaba markuu qofku si uu haddaba ganacsigiisa u sii bandhigo ilaa hawshii iyo wixii isaga looga baahnaa waa kan ka soo baxay wuxuu u baahan yahay markaa qofku si uu levelka ka sii xigo uu u gaadho supervisor-ka wuxuu u baahan yahay inuu ganacsigiisa ballaariyo. Marka ganacsiga uu ballaarinta intaanu ballaarin wuxuu uga baahan yahay qofka inuu dhaqanaadkiisii hore wax badan uu ka bedelo. Qofka waxa looga baahan yahay inuu caadooyin wanaagsan uu la soo baxo. Hadduu markii hore uu lahaana inuu sii xoojiyo caadooyinka wanaagsan ka hadlaya waa kuwa nooceeya. Waayo marka horeba dad islaam ah been nahayo caadooyin wanaagsan way leenahay. Caadooyinkaas uu qofku uu xoojinaya waxa weeyaan inuu maalin walba shaqo qabto daily activity. Isagii imka hawshiisa uu ka soo baxay 2cc buu iibiyay wuxuu diyaar u yahay inuu team samaysto. Sidaa daradeed team inuu samaysto waxa uga baahan tahay inuu maalin walba xarakaad qabanayo. Maalin walba ay shaqo qabanayo. Maalin walba wuxuu qabanayo. Micna ma samayso qofku sida uu mashquulka u yahay. Waqtigaaga kala qaybi waqtiga cibaadada
waqtiga familiga, waqtiga aad siinayso naftaada aad siinayso, waqtiga aad wax baranayso, waqtiga aad shaqaysanayso aad hawlahaaga kala qabsanayso, waqtiga caruurtaada aad siinayso, waxaasoo dhan kala qayb ha kuu kala qaybsanaadaan. waqtiga aad kambaniga aad siinayso ee aad wax qabsanayso shaqada qabsanayso waa inay kuu qorshaysan tahay wixii aad qabanaysay. deetana taasaa ku keenaysaa qorshaha maalinlaha wuxuu ku siinayaa qorshe weeglaha, kadibna wuxuu ku siinayaa qorshe billa ah. deetana bishaasi waxay kugu dhammaanaysaa guul. bilo dhan oo la isku geegeeyo 12 bilood oo la isku geeyana qorshe sanadlaha bay ku siinaysaa. taasina waxay kaa dhigaysaa inaad noloshaadii iyo wixii aad doonaysayba inaad ku guulaysato oo horumar badan aad gaadho. activity-ga lagaaga baahan yahay maalin kasta inaad qabato waxaa kaaga mid ah oo aad caadaysato oo wax caadadu waxa weeyaan waa wax maalin walba la qabto. maha caadadu waxaad intaan maanta gelinkii hore ilaa gelin dambe aad dadaashay aad beri seexata maaha. laakiin caadadu waxa weeyaan waa waxa haba yaraatee waa wax maalin walba la qabto. haba yaraatee waa waxaad maalin walba aad qabanayso ood ku celinayso deetana continuation-ka aad ku celcelinaysaa ka dhigaya mid waxtar noqota. waayo camal walba ka ugu khayrka badan waa ka maalin walba ee joogtada ay mar walba la qabto. markaa deetana productigii aad maalin walba aad iibinayso oo aad alaabtii dadkii la wadaagayso, waayo bulsho badan baa u baahan oo alaabta yala u baahan inayna waxaan ay noqon waxaad adigu kaliya isticmaashee walaalaha kalena aad la wadaagto. tiraahdid alaabta tiigaas tirid haday noqoto, haday caafimaadkii noqoto, haday maqaarkii noqoto, haday noqoto miisaankii, intii alaabeed haysayba inaad bulshadii aad u bandhigto oo deetana maalin walba alaabtaad iibiso. dad baa kugu soo biiraya maalin walba wax lagaaga baahan yahay inaad tiimkaaga cidi ku soo biirto si bulshadeena aynu hoos ugu dhigno shaqo la'aanta baahsan. deetana taasina tiimkaaguna activity uu hadhow sameeyo, activity-gaasina adiga korbay kuu qaadaysaa oo waxay kaaga qaadaysaa waxa weeyaan alaabtaad iibinayseen ayaa badanaysa. haddaba waxaynu looga baahan yahay fikir macquul ah oo nolosheena ku bedelayno oo qorshaysan. qorshahaas iyo fikirka wanaagsan qorshe ayaynu ku daraynaa iyo bilaan. qorsho bilaa action oo bilaa xarakaadina waa dhalanteed amba waa ruwaayad. saa daraadeed waxaynu u baahannahay markaynu fikirkii niyadeena kusoo dhaco oo aynu doonayno inaynu horumar samayno, oo aynu doonayno inaynu isbedel samayno, oo aynu doonayno inaan dhaqaale wanaagsan helno, oo aynu doonayno inaynu nolosheena iyo nolosha faamilyadeena iyo nolosha walaalaheenba aynu bedelno. fikirkaasi markuu kugu soo dhaco waad qoraysaa sidii aad u bedeli lahayd. si aad u bedelaysana si kale maahee maalin walba inta qofeed u yeedhayseed usoo bandhigaysa ganacsiga iyo intaad alaabta usoo bandhigayso wada qor. intaa markaad samayso waxaad tidhaahdaa tusaale ahaan 5 saacadood baan anigu kambaniga ka shaqeeya, 5 saacadood intaa iyo intaas iyo shaqada ayaan qabanayaa. kadib deetana taas waxay kaa dhigaysaa inaad meel wanaagsan aad gaadho. discipline baa loo baahan yahay. discipline-ku waxa weeyaan waa nidaam amba waa wax wanaagsan oo lagu shaqeeyo. discipline-ku wuxuu u baahan yahay activity-ga haddaba loo baahan yahay waa activity nooceeya. activity-ga loo baahan yahay waxa weeyaan inaan alaabta isticmaalno. alaabtaad ka hadli kartaa ee dadka u bandhigi kartaa ee dadka aad u sharxi kartaa waa alaabaad isticmaashay. maanta tii cadayga haddaad isticmaashay qofkii waad u sheegaysaa war saasay ilkaaga u cadaynaysaa, sidaasay samaynaysaa, anigaba sidaa iyo saasay tartay. shaamboogani timahaagu kobcinayaa, wuu korinayaa, way dheeraanayaan, jajabka iyo toxobtana way ka joojinayaa. anigu berigii hore sidaa iyo saasaan ahaa, iminkan markaan isticmaalana sidan iyo sidan aan noqday. marka calashaan inaan productiga isticmaalno. hadduu qofkii adigu wixii aad iibinaysaa aanad isticmaalin qofku kalsooni badan kuma qabayo waa inuu alaabtii ka iibsado. sidaa daraadeed waa inaad adigu alaabtii isticmaashaa. alaabtanna alaaba aynu u baahanay weeye. qof walbaaba koolgeed wuu u baahan yahay, qof walbaaba saamuun wuu u baahan yahay, qof walbaaba shaamboo wuu u baahan yahay, waayo qof aan maharanba de ma jiro. alaabtaa markaan isticmaalno dadkii aynu la wadaagno marka taas aynu productiga sidaa u bandhigno. qaybta labaad inaynu ganacsigeeni bandhigno oo walaalaheena aynu ku nidhaahno war fursadan iyo ganacsigan baan kuu haynaaye kaalayo fursadan iyo ganacsigan ka faa'iidayso.
qaybta labaad deetana traininada aan ka qayb galno. Traininadu waa very important. Mar walbo training aad ka qayb gasho waa mar walbo shidaal fiican aad qabatay. Saa daraadeed waa inaad mar walba xarunta traininada lagu qabanayo iyo tababarada lagu qabanayo kolba xarunta aad joogto waa inaad ka qayb gashaa. Haddii kalena aad fiidiyoyada iyo online-ka aad mar walba ready ka tahay oo ka qayb qaadanayso. Haddaba haddii aanad adigu naftaada aadan bedelin oo aadan naftaada fikirkaad fikiraysa aanad bedelin, adigu noloshaada weligaa isma bedelaysid. Saa daraadeed qofka waxaa loo baahan yahay inuu isbedel nololeed uu sameeyo, inuu isbedel jismi uu sameeyo, inuu isbedel wanaagsan uu sameeyo. Isbedelkeenu ka hadlaynaana waxa weeyaan waa isbedel nololeed oo noloshaada aad ka bedelayso waqtigan halkaad ku jirto, taasoo ah dhaqaale yaro kooban, hanti yaro kooban, chain ah amba silsilad ah iyo deegaan ah aad iska bedelayso. Waxba lama qaban karadiyo oo aad ka dhigayso waa la qaban karaa, waana la socon karaa, waana horumar baa la gaari karaa. Haddaba qofku markuu assistant supervisor yahay ee uu labadii CC iibiyo, wuxuu diyaar u yahay qofkaasi inuu labada CC markuu iibiyo dee alaabtii qaato oo alaabtii dhammaystirto. Wuxuu diyaar u yahay qofkaasi inuu team sameeyo. Marka maxaa lagaga baahan yahay? Shaqooyin badan ayaa kuu yaala. Shaqada kuu taala waxaa loo baahan yahay inuu qofku fahmo learn how to do product launch. Product launch-ku waxa weeyaan waa bandhiga alaabta. Waxaad tusaale ahaan shaqadeenani uma baahna inaad mar walba xafiis u taagnaato. Gurigaagaad ku shaqaysan kartaa, xafiiskaagaad ku shaqaysan kartaa, hawlahaaga online-kaasaad ku wadanaysaa. Kolba adiga sidii ku fudud. Xafiiska traininada iyo programyada waaweyn marka waxaas jiraan, schedule-ada iyo presentation-nada badan iyo waxyaabaadka mooyaane mar walba xafiis calashan taa wax maan uga jeedaa xafiis muhiim ah mar walba inaad taagnaato. Mar walba gurigaagaad ku qabsan kartaa, meelo kala duwan baad ku qabsan kartaa. Saa daraadeed waxa la yiraahdo product launch baa jira. Product launch wax kale maaha meelaha dadku ku kulmaan amba gurigaaga oo kale ayaad caruurtii oo kale iyo buuq iyo waxaasaad ka yaraynaysaa. Dadkii xaafadaad odhanaysaa maanta program baan leeyahay igala soo qayb gala. Deetana dadkii xaafadihii islaamihii dadkii iyo reerihii oo dhan baa ku imanay gurigaaga. Marka la yimaado alaabtii oo sii diyaarisay, miis baad sii dul saaray, alaabtii baad sii diyaarini. Markaad sii diyaarisid alaabtii baad u sharxaysaa. Anigu waxaan haynaa tan kalaan haynaa, tan kalaan haynaa, tan kalaan haynaa. Alaabtii oo dhan bay dadkii aad ugu sharxi. Bartaasay intaasoo qofiba ay alaabtii ka iibsanayaan. Markay alaabtaa iibsadaan way isticmaalayaan. Meelaha caruurtu ku ciyaarto kale jimcayaasha kale lagu qabto, meelaha caruurta la geeyo kale ama meelaha dadku ku kulmaan oo kale ayaad dhigan kartaa productigaaga. Deetana dad badan ayaa halkaa kaaga iibsanaya. Markaa sidaas la yiraahdaa product launch. Marka product launch-kuna waa very important waayo macmiil badan baad ku helaysaa. Macmiisha badan aad heshay ayaad hadhowna ku oran kartaa walaalow ka waranba bal haddii aad inukuba aad ka shaqaysataan ganacsigii oo deetana aad ka faa'iidaysataanba alaabtan oo idinku ka shaqaysataan. Dadkaasina waxa ku orani waa si fiican sidaan u shaqaysanay warbixintii baa la siinaysaa si teamkaagii uga mid noqonayaan. Inuu qofku barto markuu assistant supervisor yahay nidaamka marketing plan-ka, habka loo shaqeeyo, dadkana lacagta loo kala helo amba faa'iidooyinka sida loo helo. Nidaamka marketing plan-ka iyo company-gu siduu u shaqeynayo waa muhiim inuu qofku nidaamka xisaabaadka uu fahmo oo uu hadhow isagu wixiisii u xisaabsan karayo. Waxa iyaduna muhiim ah markaad assistant supervisor tahay sida loo qabto one to one. One to one-ku waxa weeyaan one to one training baa la yiraahdaa. One to one training-kaas marka waxa weeyaan inaad amba warbixin amba tababar aad hal qof siin karto. Marka taasoo ah iminka tusaale ahaan qof keligii yaa kuu yimid. Markuu keligii kuu yimid warbixintu u baahan yahay. Laakiin groupkii badnaayo 10 qof 20 qof maaha. Marka qofkii waad la fadhiisatay, waad sheekaysateen, waad wada fadhiisateen, warbixintii baad siisay. Taas la yiraahdaa one to one. Qodobka kale ee muhiimka ah waxa weeyaan inuu markuu assistant supervisor yahay qofku habka dadka loola sheekaysto, conversation-ka iyo wada sheekaysiga qofka loola sameeyo inuu qofku barto. Kaasoo ah inuu ka dhaadhicin karo fursadan oo reeri qofkan aad casuuntay ee walaalkaayi uu u baahan yahay fursadan. Balse fursadan ma fahansana
mar haddaanu fahansanayn waa inaad adigu fahansiisaa ilaa adigiiba fahansanayn. saa daraaddeed waa inaad barataa habka dadka wada sheekaysiga loola yeesho, ee dadka loo wada fadhiisto, ee sidoo kalena aad horumar qofka noloshiisa aad isbedel ka samayn lahayd, ee horumar noloshiisa aad u gaadhsiin karto. waa inaad barataa habka dadka looga dhaadhiciyo nidaamka iyo wixii adigu aad noloshaada hayso. sidoo kale qodobka kale muhiimkahay waxa weeye markaad assistant supervisor aad tahay inaad mindsetkaaga aad dhisto, ood dhegeysato fiidiyoyada motivationka, aad dhegeysato qur-aanka, buugaagta, sidoo kale aad akhrisato qur-aanka inaad akhrisato iyo inaad dhegeysato waxay kaa caawinaysaa inaad u dhiiri gashato ood u dhiirato, ilaahayna kuu fududeeyo dadaalkaaga. sidoo kale inuu qofku dhegeysto buugaag baa jira la wada qoray oo la bedelay, oo uu qofku hal mar uu dhegeysan karo buuggaa dhanba uu 30 minutes 30 daqiiqaba gudaheed uu ku dhammaysan karo waa hal buug. inuu sidoo kale uu qofku buugaag akhriyo, sidoo kale inuu hadafka iyo noloshiisa xalka uu socdo, taasoo ah meesha uu doonayo qofku inuu qoro xalku doonayo nolosha inuu gaadho. waayo xalkaad doonaysa nolosha inaad gaadho waxaa ka horeeya inaad garato adigu xalkaad doonaysid horta. qodobka kale muhiimkahay waxa weeyaan inuu qofku commitment leeyahay. commitment inuu leeyahayna wax kala maahee waa ka go-naansho uu doonayo qofka ka go-an inuu noloshiisa isbedel taban oo toosan inuu ku sameeyo, isbedelkaasoo noloshiisa uu horumar badan uu ku gaadhsiinayo, isbedelkaasoo noloshiisa uu hiigsanayo, kaasoo isbedel nololeed oo buuxa uu doonayo inuu ku gaadho. marka commitmentku waxay kaa caawinaysaa inaad noloshaada aad wax badan aad samayso, inaad noloshaada wax badan aad bedesho, inaad tidhaahdid wixii deegaanka waxa kaaga hor imanaya, deegaanka waxa ku xeeran oo dhan waa dad iska fadhiya, waa dadaan isbedel doonayn, waa dadaa nolosha sidan ay ku jiraan ku qanacsan, adigu laakiin kuma qanacsanid. saa daraaddeed waxay ku odhanayaan laakiin waxaa lama samayn karayo, tan lama qaban karayo, awowgiina 15aadba waxaa muu samaynin, ha iswareerinina iska fadhi, war maahay ha isdaalinin, war maxaa ku dhibay, war miyaad waalatay, war miyaad dawaqday, waxaasaa lagu odhanaya. saa daraaddeed deetana inaad adigu tidhaahdo may anigu kaama yihi, anigu waxaan ahay qof isbedel samayn karaa, ilaahay guul buu ila doonay, ilaahay horumar buu ila doonay, aniguna waan doortay inaan isbedel nololeedaan sameeyo. saa daraaddeed horumar baan gaadhayaa, cid iga hor istaagi kartaana ma jirto, deetana aad ku dhaqaaqdo. sidoo kale qodobka aada iyo aadka isaguna u muhiimkahay waxa weeyaan inuu qofku barto sida loo dhiilgareeyo amba loola xaajoodo amba loo xaliyo waxa loo yaqaano nooga. dad badan baad shaqada u bandhigaysaa laakiin waxay ku odhanayaan maya. dadku waa like a kitchen, dad badan oo kitchen a jira, amba dadku waa like a stone oo kale. inaad dheeman heshaa waa wax adag weeyaan. dheeman inaad hesho waa markaad kala baadho oo dhul badan qoto xabad dheemana kasoo helaysaa. dad badan oo like kitchen a jira, kitchenkaasoo ah dad badan oo kugu xeeran oo digaag oo kale ah oo calashaan faa'iido badan aan lahayn. saa daraaddeed deetana kuwaas waxaa kaaga imanaya caqabado badan, laakiin inaad eagle ka dhex hesho oo dad baasa aad ka hesho oo si fiican u fikiraya, duulaya, soconaya, waxaad u baahan tahay inaad iyaga si fiican aad u fahansiiso ood waxaan adigu kala dirto. markaa sida loo dhiilgarayo amba loo xaliyo nooga waa inaad fahantaa, amba mayada inaad fahantaa. inaad sida loo xaliyo maya waxay u baahan tahay inaad qofkii kambanigii iyo nidaamkiiba aad fahansiiso. qofku markuu supervisor yahay shaqadii sidiiba usii soconaysaa, dadaalkii iyo juhdigii aad assistant supervisorka aad ahayd wuu kasii badanayaa, hoosuu soo dhici maayee wuu sii badanayaa. waxaa lagaaga baahan yahay qofka inuu maalin walba shirarkaasoo ah tababarkaasoo laba ah, tababarka dadka cusub la siinayo oo ah business presentationka, iyo tababarkii dadkii hore ku jiray, labadaba inuu qabanqaabiyo. waayo isagu imika waa leader baad noqotay bay ka dhigantay markaad supervisor tahay, hogaamiyaa tahay, tiim baad leedahay, meel saread gaadhay bay ka dhigan tahay. saa daraaddeed maxaad u baahan tahay? waxaad u baahan tahay inaad warbixintii aad bixiso adigu,
wixii ableynkaagu berigii hore kuu qaban jiray oo dhan in wakiilkaagu adaa iminka qabanaya. saa daraadeed maxaad u baahan tahay inaad wax badan baratay. markaad assistant ahayd inaad wax badan aad baratay ayaa loo baahanyay. waxaa qofka looga baahan yahay markuu supervisor yahay sida develop the leadership skills. dad badan ayuu hogaaminayaa, tiim buu yeelanaya, tiimkiisaasa tiim yeelanaya. waa inuu dabeecad furfuran la yimaadaa, waa inuu furfurnaansho badan, waa inuu maskax badan la yimaadaa, waa inuu activity ka badan kuway tiimkiisu sameynayeen uu sameeyaa oo uu qabtaa. waayo adiga ayaa lagugu dayanaya markaad supervisor tahay. adiga ayaa leader ah, adiga ayaa hogaamiye ah, adiga ayaa horjooge ah. saa daraadeed waxaad u baahan tahay inaad noloshaada aad bedesho si aad saameyn ugu yeelato nolosha walaalaha. waxaa loo baahanya qofku inuu be active ahaado and show your team. inuu qofku active qof shaqeynaya uu yahay, sidoo kalena siduu activeka u yahayna uu tiimkiisa u tuso. sidoo kale activekaasi waxa weeyaan sidoo kale inuu qofku 4 cc uu iibiyo. micnuhu maaha tiim baan sameeyey waan iska seexanaya, ma aha. sidaa maaha shaqadeena kii tiim sameeyey iyo kii kale intuba waa wada shaqeynayaan. nin walbaba wuu xoogsanaya, nin walbaba wuu dadaalaya, nin walbaba juhdi buu gelinaya. saa daraadeed inaad 4 cc aad adigu iibiso, 4 cc tababarka cc-yada ayaad ku arki doontaan sida loo sameeyo 4 cc. marka 4 cc inuu iibiyey, sidoo kale aad iibisay adigu markaad supervisor tahay, sidoo kalena tiimkaagii aad tusto sida loo iibiyo 4 cc. markaa deetana recognitionkii iyo abaalmarimihii kale iyo levelkii ku xigayna aad isku diyaariso si aad u gaari lahayd ood hore ugu socon lahayd. aad baad walaalayaal u mahadsantihiin. kaasoo ah level buildingka. assistant managerka iyo managerkuna waa gaar. ilaahay ni sharfo, hana inagu anfaco inay wax badan ka faa'iidnayna waan rajeynaya. khayr iyo caafimaad iyo bashbash iyo barwaaqo iyo shaqo wanaagsan ma walaalayaal inii soo rajeynaya. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.